لعبادته حديث القدسي في تفسير ابن كثير بكشاقي نرجعنا كم وقته إني مسلمين أعز الناس إن نقدان إن وجعلها قال دين تدلال كيجي نيوال بق غير كدم وقشنا يا مركبة وروح بق غير كدم بها قشنا غير كهرة قشوا يا وديار غير كولا ينقليو إن شاء الله هذا الله إنك فرحيو الله إنك فرحيو هاي نوبل لنا دين تدلال كيجي إن الوقت كبحنو تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك تفرغ لعبادتي حديث القدسي في تفسير ابن كثير بكشاقي في شرح وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلهي باكله تفرغ لعبادتي وارطاعت ديدا عبادة ديدا دين تيدا وقت وصمي با إلهي كله ابن آدم هذا الدين وقت وصمي سمحنا ليس مركا أملأ صدرك غنى با إلهي لابتان أن يقولنا كاقب بحين با إلهي هضم هل كان لقد نقضى غني غنى النفس ما كسين ويانا بايدا أنا كود بولي با إلهي كله يحي وأسد فغرك الباب الفغر يقولنا أنا كاد بولي با إلهي وكاحد يا وإلا تفعل هذا العبادة ديدا يطاع ديدا يدين تيدا هذا وقت السين وإذا با إلهي كله يحي بايدا أنا كاد بولي مينو قعنت هذا مشغول ما كدقنا با إلهي ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك أفر إلا ما تلقى ساعة مشغول ما كان يجيب إلهي كايدي فقرك أنا كاحد منه والله ما عقوبة ومتى خد على مات كيف فقير كيف وعدها يسن مرقى جماعات بوتك تترى إلهي درتي نورع وعليني ما هلا يليو وحبا ما يسد بي مشغول بارهي بكورن وحبا ما يسد بي هذا مقايد بفضيع دول كيف قابو فارستقاب baabuurta dariiqa la eryanaya inuu kala mid saa u eegaya BBC-du geynaya adeecado dad walwalan ay leeyihiin oo baalkan maanta laga soo saarayna kolba mid buu gashanaya waxa caalamka ka dhacay uu la socdaa aakhiradiisina war uma hayo marka jamaacadu u tagtay tiraadana masjidka noo raac in yar ilaahay hadalkiisa la dhageyso mashquul baan hoo nima haleelayo maxaa mashquul ku tahay waxa mashquul ku tahay uquba kugu dhacda mashquuliyad la yiraahdo كيما القبين كهانا إيه هايستي كنتم كنوا صنو كنتم صنو أما بقول صنو هدو هردو وحو عننا هاي سوا بانكا أي يقول جرتو هذا لا فقر مكبقيا ما دعلو سوا كنتم صنو أما بقول صنو قوت هيسي إلهي ميل وصارو هايستا هذا ترى إلهي درتي أبح ومسجدك وحقشو ومدرسة وحقشو ومعلم قرآن ما ركان أنا فقدي سنة قبحي هدي اللي يدادو وعليا هيا حبا ما هايستلا سجن وحى كل دعي عقوبة ده ولم أسد فقرك الباب ده فقرك كاحد من بين هيولي هذا دينتن يدعوة ده يعلمك يا مساجد سيد ومد الله وقصوا حري لها الوقت جاء وبحري ويدو لما لا عقوبة كل دعي سقفك مشغول أفر لما تلقى ساعة مشغول بالله قدقي أفر لما تلقى ساعة وكيبها عهد النبي عليه الصلاة والسلام markuu nabigu madiinata almunawwara uu yimiday laba amal buu nabigu markiiba madiina ka dhaqaajiyay bana almasjid masaajid buu nabigu markiiba uu dhiso umada u calaamadeeyay amalka labaad uu nabigu madiina markuu yimiday uu qabtayna waxa kamid ahay akha bayna almuhaajiriin wal ansar ansar iyo muhaajiriin buu nabigu walaalo uu ka dhigay muxuuna ku walaaleeyay ala asaas al-iimaan iimaan buu ku walaaleeyay ukhuwada wuxuu nabigu asaas uga dhigay islaamnimada ayuu nabigu ukhuwada asaas uga dhigay iimaanka ayuu nabigu maaragtaan asaas uga dhigay ukhuwada islaamka masaajidka markaas wuxuu noqday meesha ummadda nabigu ku tarbiyadeeyo hadii diin la baraayana qofka masjidka lagu barayay hadii wufuud nabigu uu qaabilayna masjidku ku qaabilayay haduu nabigu ciidamo uu darayna masjidku ka daraayay haduu maaragtaan jamaacada diinta ilaahay fidinaya uu darayna masjid buu ka daraayay haddii nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii ummadda uu la tashanayay masjidka dhexdeedu nabigu kula tashanayay salaadii cishaa buu nabigu ka baxay uu istaagay wuxuu yiri salaadii ilaahay baan nasiyo nagu farad yeelay
laakiin sidaan ummadda salaada aan ugu yeedhi lahayn baa laynaga rabaayo ka tala bixiya buu rasuulku yidhi. danta ummadoo dhan nebigu maskiid buu ka bilaabay. sideen ummadda salaada xaggeega aan ugu yeedhnaa? waa talo, waa tashi, waata ilaa imika ummaddu ay fahmi laadahay. war diintan tashi bay u baahan tahay. diintan dhegaysi keliya uma baahno. diintan waxay u baahan tahay caaqilka iyo caalimka, ka yar iyo ka weyn, faqiir iyo qani, madaxdeenni iyo mijaheennu intoon masaajida ku kulanno. salaad waan ku kulannaa alxamdu lilah, laakiin waxaa la rabaa inaan ku kulanno diinta tashigeega inaan ku kulanno. sidaan ummadda salaada xaggeega ugu yeedhnaa? salaada nebiga isagaa loo soo dhiibay, halka axkaamta kale oo dhanna nebiga arlada isagoo jooga loogu soo dhiibay jibriil calayhi salaam. soonka markii ummadda lagu farad yeelay jibriil baa loo soo dhiibay. zakada markii ummadda lagu farad yeelay jibriil baa loogu soo dhiibay. xajka markii ummadda lagu farad yeelay jibriil baa loogu soo dhiibay. alcibaadaat, anwaac alcibaadaat oo dhan markii nebiga iyo ummaddiisa lagu farad yeelayay jibriil baa nebiga loogu soo dhiibo arlada ugu keenayey. laakiin salaada markay noqotay, salaada nebi maxamed baa intuu arlada laga qaaday oo la dheelmiyey oo haddana micraaj loo bilaabay, leylat alisra walmicraaj, ayuu nebigu ilaahay la soo munaajooday. dadna shantaas salaadood baa nebiga loo soo dhiibay, shantaas salaadood. laakiin habkii ummadda salaada loogu yeedhaayey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisaa loo dhaafay inay ka fikirtay, ka tashato. markaa nin saxaabiya ayaa yidhi markaas, taana qolada cadcaadiya dabka caabudaa isticmaashay tala keena buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. deedna markaa haddana nin kalaa yidhi, anigana waxay ila tahay booq in la afuufa fuudhin, taana yahuudda isticmaasho waa caadada yahuude, tu kala keena buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. suuradii habeenkii markay muddo dheer ay socotay buu nebigu yidhi, arrinkaasi caawa haynagu barya, subaxda haynoo haata buu rasuulku yidhi. sidaan ummadda masaajidka ugu soo xidhnaa? sideen ummadda aan salaada ugu soo xidhnaa? siday ummaddan ilaahay ugu xidhantaa? ayuu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa kala tashanaya. salaada waa salaada awqaadeeda iyo kayfiyadeeda iyo inta rakacadood ay tahay iyo hay-adda salaada iyo awqaadda la tukan, kulluhaa waa waxyi weeyaan, waa waxyi, waa cibaado weeyaan. nebiga waa loo waxyooday, laakiin kayfiyaddii ummaddu salaada loogu yeedhi lahaa waxaa loo dhaafay nebiga iyo ummaddiisu inay ka tashato. halkaa maxaad ka fahmaysaa? sidii masaajidda shaqada loo dhisay bay kamid tahay shuuradu. in dadka muslimiintu danta ummadda, talada ummadda, maxaa ummadda u dana, diintooda maxaa u dana, adduunyadooda maxaa u dana, noloshooda khaaska maxaa u dana, noloshooda caamka maxaa u dana, inay ummaddu arrinkaa masaajidda dhexdeeda ay kaga tashato waa sharci ilaahay noo soo dejiyey weeyaan, waa sunna nabawiya, laakiin mahjuuro maanta laga hijroodo ummaddu ka indiraastay weeyaan. salaadii subax markii laga baxay buu nebigu yihi, ayaa xalay toola arkay buu yihi riyo. suuradii baa socota, taladii baa socota, tashigii diintaa socda. nin saxaabada ka mid ahaayo weliba ragga busodada ka mid ahaa ayaa yidhi, xalay toola anoo dhinacna kasii loolanaya, dhinacna ka soo jeeda ayaan maqlay buu yihi dhawaaq dhegtayda lagu dhawaaqaayo, erayadiina waan xasuusanahay nebi allow. markaa buu nebigu yihi, erayadii ma xasuusan tahay? haa. bal erayadii xalay dhegtaada lagugu dhawaaqeed maqlaysid noo sheeg. markaasuu sii daayey, ninkii aadaankii buu sii daayey. allahu akbar, allahu akbar. markaasuu yidhi cumar bnu khadaab, aniguna manaamka xalay waan arkay 6 nin oo saxaabadii ka mid a, ay isku mid bay yidhahdeen, annaguna xalay riyadaa waan ku riyoonnay. markaa buu nebigu yidhi, adinkeennii waa kaase, laakiin aadaankaa bilaal bara buu rasuulku ka yidhi.